kulanti wanaagsan daawadaalkuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee warqaad miidiya qodobada wararkaanu ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in dalku u baahan yahay isbedel degdeg ah haddii uusan ka dhicinna uu dalka la isku jiro. madaxweyne farmaajona waxaa la sheegay in saacadii lasoo dhaafay cadaadis xooggan ay saareen dowlado caan ah kuwaas oo ay ku go'aamiyeen arrimaha Soomaaliya iyo weliba doorashada dalka. dhanka kalena 4 tallaabo ayaa lagu wadaa inay Iiraan ka qaadi karto suurtagalnimada dilkii loo geystay General Qasim Suleymani. Wasaare Khayrana waxa uu magaalada Dhuusamare maanta ku kala diray mid ka mid ah gudiyada doorashada ee Galmudug. Ilhaan Cumarna waxa ay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu baaqday inuusan wax dagaal la gelin dalkaasi Iiraan. qodobadaas iyo weliba qodobo kale oo xiisalayaan barnaamijkeena daawadayaal ku soo qaadan doona intaan hawada ku jirno. haddii aan qoblano daawadayaal faahfaahinta wararkaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu weerar ku qaaday madaxda hadda hoggaanka u haysta dowladda Soomaaliya. Sheekh Shariif oo ku sugan magaalada UK ayaa sheegay in maanta dalku uu baahan yahay isbedel maamul isla markaasna laga doonayo dadka Soomaaliyeed in ay hormuud ka noqdaan. Sheekh Shariif ayaana ku baaqay in la bedelo madaxda hadda talada haysa maadaama laga waayay karti horumarineed oo ay uga gudbaan xaaladii halista uu dalka hadda wajahayo sida uu hadalku dhigay. madaxweynihii hore ayaana tilmaamay in mustaqbalka Soomaaliya uu mugdi ku jiro loona baahan yahay inuu dhaco isbedel degdeg ah. Sheekh Shariif ayaa dhanka kale xusay inay al-shabaab kordhiyeen weeraradii ka dhanka ah shacabka sidaas daraadeedna loo baahan yahay in si wadajir ah loo midoobo si dalka looga saaro. Sheekh Shariif ayaana hadda hayay xilka gudoomiyaha xisbiga madasha qaran wuxuuna si weyn uga soo horjeedaa siyaasadda ay dowladdu ku maamulayso dalka. Sheekh Shariif ayaana ku guuldareystay labadii doorasho ugu dambeysay Soomaaliya ka dhacday waxaana midii hore kaga guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud halka midii ugu dambeysayna uu kaga guuleystay madaxweyne Farmaajo oo hadda isaga ah madaxweynaha dalka. madaxweyne Farmaajo ayaana intuu xilkayay waxaa lagu eedeynayay isbedelo dhowr ah uu sameeyay iyo weliba sidoo kale inuu ka gaabiyey waxyaabihii loo doortay. waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladda madaxweyne Farmaajo laga sugayay ayaa waxa ugu weyneed amni dalka ka dhaca guud ahaanba iyo weliba doorasho dalka ka dhacdo oo qof iyo coda taasoo gebi ahaanteedba hadda aan muuqanin. dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la sheegay warar lagu kalsoonaan yahay waxay sheegayaan in cadaadis uu kala kulmay saacadii lasoo dhaafay wadamada Turkiga iyo weliba Qatar. saameynta weerarkii Baghdad ka dhacay habeenimada Jimcaha soo geliyay waxaa laga dareemay dunida oo dhan kadib dilkii General Qasim Suleymani. xukuumadda Ankara iyo weliba Dooxa waxay Farmaajo ku qasbeen inuu tacsi ka diro dilkaas isagoona la hadlay wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdulmahdi. waxa uu sheegay Farmaajo in ay ka xun yihiin dowladda Soomaaliyeed ahaan dilkaasi loo geystay Qasim Suleymani oo ahaa 63 jir hoggaanka militariga Iiraan caan ka ahaa. waxa uuna madaxda Qatar iyo Turkiga ayaa hore Iiraan iyo Ciraaq waxay uga ka tacsiyeeyeen dilkii generaalkaasi oo saameyn ballaaran ku lahaa bariga dhexe. waxaa sidoo kale ay xubno aan la xiriirnay oo ku sugan Villa Soomaaliya noo xaqiijin in madaxweyne Farmaajo uu waraaq taqasi ah u diray madaxweynahaasi ee dalka Ciraaq si uu uga tacsiiyey dilkii loo geystay General Qasim Suleymani oo ah janaal u dhashay dalkaas Israel isla markaasna bartilmaameed lagu dilay isla gudaha magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq xilli uu marayay meel aan sidaas uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee Baghdad. Qasim Suleymani dilkiisa ayaa waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay dunida iyadoo laga dareemay wadamo badan oo caalamka ka mid ah. saameyn dhinacyo badan taabanaysa ayuuna sameeyay dilkiisa kadib taasoo ay ka mid tahay dhanka saliidda ama soo saarka shidaalka oo uu suuqa labadii maalmood ugu dambeysay aad looga dareemay. dhanka kalena Iiraan waxaa laga yaabaa inay ka fiirsato dhowr tallaabo adag oo ay ka argoosanayso Mareykanka kadib markii Donald Trump uu ciidamada militariga Mareykanka amar ku siiyay in la dilo General Qasim Suleymani oo khamiistii dilkaasi loo adeegsaday gantaalo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku rideen baabuur uu la socday oo marayay garoonka diyaaradaha magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq. safiirkii hore ee boqortooyada Ingiriiska ee dalka Lebanon Tom Fajro ayaa sheegay in General Qasim Suleymani waa nin shakhsi ahaan aad uga awood badan Osama bin Laden ama Abu Bakr al-Baghdadi maadaama awoodo hoose uu dhacay markii la dilayay
isagoo la hadlayay barnaamijka idaacadda afarta ee raadiyaha BBC-da waxa uu sheegay in Iiraan ay hadda haysato ugu yaraan 4 qaab oo kala duwan ay ugu argudato madaxweyne Trump. mar wax laga weydiiyey sida Iiraan ugu argudan karto Mareykanka ayuu waxa uu yiri jawaab istiraatiijiyeed oo Iiraan bixin karto waa inay sii xoojiso mowqifkeeda Ciraaq waa haddii ay diyaar u tahay inay bixiso jawaab caqliyeysan. ninkan ayaana sheegay sidoo kale in Iiraan u furan tahay inay qaado ilaa 4 talaabo oo halis karin aad u weyn ah. waxa uu ku kala sheegay in Iiraan sheegato inuu dilkaasi ahaa mid ay ka shaqeeyeen sirdoonka dalkeeda iyo weliba kooxo kale oo Iiraaniyiin ah kuwaas oo soo agaasimay dilka Qaasim Suleymaani sidaasna ay kiiskan uga harto, iyadoo taasi ka muujinaysa in Mareykanku uusan lahayn awood uu keligiis ku beegsado sarkaal sare oo Iiraaniyiin ah. inay qaado dagaalo ay adeegsato kooxaha la rumaysan yahay inay iyagu taageerto ee ah kal Xisbullah oo ka dagaalanta Lebanon, kooxaha ahlul xaq ee Syria iyo weliba Xuutiyiinta Yemen iyo kacdoonka shacabka reer Ciraaq kuwaas oo lagu bartilmaameysanayo saldhigyada iyo weliba xarumaha dowladda ee Mareykanka ku leeyihiin dalalkaasi. inay weerar ku qaado saldhigyada Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe taasoo keeni karta inuu qarxo dagaal weyn oo u dhexeeya Mareykanka iyo weliba xulafadiisa oo dhinaca iyo weliba Iiraan iyo weliba dowladaha taageersan, taasoo noqon karta halis soo wajahda adduunyada guud ahaanba inay weeraro aan kala go' lahayn qaado sida kuwii ay ku qaaday xarumaha saliidda ee Sacuudiga kuwaas oo ay ka gaartay guul weyn oo ah inay iska yareysay culayskii ka saarnaa dowladaha Carabta ay ugu horeeyeen Sacuudiga weliba Imaaraadka Carabta. Qaasim Suleymaani oo 63 jir hogaaminayay ciidamada Qudus waxaa loo arkayay inuu ahaa qofka labaad ugu awoodda badan dalkaas Iiraan marka laga soo tago hogaamiyaha maxkamadda ugu sareysa dalkaas Ayatollah Khamenei. gudaha dalka Iiraan waxa uu ka ahaa geesi qaran, balse Mareykanka ayaa Jenaraal Suleymaani iyo weliba ciidamadiisa Qudus waxay u yaqaaneen argagixiso, taasoo keentay in ay Mareykanku bartilmaameedsado ninkaasi. madaxweyne Trump ayaana amarka lagu dilay ninkaasi bixiyey, waxa uuna sheegay inay dilka Qaasim Suleymaani soo afjari doonto dagaalka Iiraan iyo weliba Mareykanka sidoo hadal ku dhigay Trump. dhanka kalena xildhibaanada Koongareeska dalka Mareykanka Ilhaan Cumar oo qoraal dheer kusoo qortay barteeda Facebook ayaa waxa ay sheegtay inaan loo baahnayn in dagaal waqti xaadirkan lala galo dalka Iiraan, iyadoona uga digtay madaxweyne Trump inuu arrintaasi ku dhaqaaqo. Koongareeska Mareykanka ayaa ilaa hadda iyaga wax warar ka soo saareen arrintii lagu dilay Qaasim Suleymaani walow ay ka hadleen ilaa 6 shakhsi oo Koongareeska ka mid ah kuwaas oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar. Ilhaan Cumar ayaana sheegtay in loo baahan yahay cod dheer inaanu ku sheegno in dagaal lala galo Iiraan ay halis gelin karto dhammaanba adduunka, waxayna sheegtay inay taasi tahay khibrad iyo weliba ka fiirsasho la'aan uu madaxweyne Trump rabo inuu halis ku geliyo dalka Mareykanka. waxaana loo baahan yahay in Koongareeska Mareykanka ay codkooda kor u qaadaan si ay arrintaasi u baajiyaan, waxayna gebi ahaanba cambaareysay arrinta la xiriirta dagaal ka dhana Iiraan in waqti xaadirkan ay Mareykanku la galo. waxa ayna sheegtay in loo baahan yahay in waqti xaadirkan lagu dhameeyo wax kasta wada xaajood iyo weliba dhinaca siyaasadeed. ugu dambeynna wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee deegaanada Galmudug ayaa waxa uu maanta kala diray sida la sheegay qaar ka mid ah guddiyadii doorashada ee deegaanadaasi Galmudug. beelaha deegaanada Galmudug ayaa laga qanciyay dhammaanba tabashooyinka ay qabeen, waxaana arrintan keentay inuu soo baxo go'aankan. Khayre ayaana sidoo kale amar ku bixiyay in lagu dhawaaqo liiska xildhibaanada ka dhiman baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug, waxaana la ogyahay in guddiga doorashooyinka laga sugayay inay magacaabaan 69 xildhibaan ee haray. jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii guddiga doorashooyinka Galmudug ay ku dhawaaqeen liiska 20 xildhibaan oo ay soo xileen ahlu sunna, waxaana la fahamsan yahay in dowladdu ay ka shaqeynayso sidii doorashada uga dhici lahayd waqtigii loogu talagalay. dhowr jeer ayaana fashilmay jadwalka doorashooyinka Galmudug, waxayna guddiga filayaan hadda in kulamada wasaare Khayre uu la yeelanayo ahlu sunna iyo weliba odayaasha dhaqanka ay wax badan ka bedeli doonaan arrimihii hore. sida la wada ogyahay guddiga waxay ilaa xog ogaal ah oo ay sheegayaan in dhawaan ay ku dhawaaqi doonaan 69 xildhibaan ee maamulka Galmudug, waxaana la filayaa inay dhacdo doorashadii kama dambaysta ahayd ee deegaanadaasi Galmudug, iyadoona musharaxiinta madaxweynayaasha deegaanadaasi ay ilaa iyo shalay iyo maanta ay gaarayaan magaalada Dhuusamareeb, waxaana wadaan ololahoodii ugu dambeeyay ku aadan xilka madaxweynenimo ee deegaanada Galmudug, waxaana ilaa iyo hadda ugu cadcad sida la sheegayo
madaxweynenimada deegaan maamulka galmudug ilaa iyo 4 musharax madaxweyne kuwaas oo la filayo inay ku kala hari doonaan wareegga labaad ama saddexaad. wixii warar oo kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaana daawada kusoo qaadan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.